Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalayaal. Maanta waxaan dhiganaynaa qaybtii afraad ee mot de la religion ayaan dhiganaynaa ka bogasho wacan insha Allah. Sidii loo akhrinayay codkii hore dhegeysiin kadibna macnihina waan sameyn hadduu Ilaahay idhaahdo. Cimetière, 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 Cimetière waa xabaasha ama xabaalaha la dhahdaa. Cimetière waa maxay? Waa xabaalaha la dhahdaa. Cimetière waxaa la dhahdaa xabaalaha. Kelmadda labaad ee ku xigta linceul, 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 lancel kafanka la dhahdaa. Lancel waxaa la dhahdaa kafanka. Lancel waa maxay? Waa kafanka qofka markuu dhinto lagu doobo. Lancel waa kafanka. Kelmadda saddexaad ee ku xigta bénédiction, 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 benediction barakada la dhahdaa ama duco oo kale waa barakada weyn. Benediction waxaa la dhahdaa barakada. Kelmadda afraad ee ku xigta malédiction, 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 malediction waxaa la dhahdaa habaarka. Malediction waxaa la dhahdaa habaarka. Malediction waa maxay? Waa habaarka. Kelmadda shanaad ee ku xigta supplication, 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 supplication waa baryada. Supplication waxaa la dhahdaa baryada la dhahdaa ama alla bariga. Supplication waa maxay? Waa baryada. kelmadii lixaad saa loo akhrinayo verset, 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 waa aayad. Verse waa maxay? Waa aayad. Verse waa maxay? Waa aayad. kelmadda toddobaad saa loo akhrinayo créateur, 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 créateur waa khaaliq. Créateur waa maxay? Waa khaaliq ama waa abuure. Créature-na waa makhluuq aan soo dhiganay. Créateur-na waa khaaliq ama waa abuure af Soomaali. kelmadda sideedaad ku xigta saa loo akhrinayo bien, 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 bien waa wanaagga la dhahdaa. Bien waa maxay? Waa wanaag ama khayrka la dhahdaa. kolka diin ahaan wanaagga la dhahdaa ama khayrka ayaa la yidhaahdaa. kelmadda sagaalaad ee ku xigta saa loo akhrinayo mal, 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 maal waa xumaanta. maal waa maxay? Waa xumaanta ama waa sharka. maal waa maxay? Waa xumaanta ama waa sharka. kelmadda serviteur saa loo akhrinayo serviteur, 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 serviteur waa maxay? Waa addoon. waa addoon. Serviteur waa maxay? Waa addoon. xagga nimka diiniyan addoon bay noqotaa. macno kalena waa leedahay kelmadda serviteurka kabalyeeri weyn ama waa mudalab baan odhanaa. xaggan lahajada Jabuuti qofkan alaabta ugu soo dhadhiga maqaaxida markaa ka cunteynaysid mudalab baan odhanaa. ama waxaa la dhahdaa kabalyeeri lahajada kale ee xagga Soomaaliya laga isticmaalo. kelmadda koob iyo tobnaad saa loo akhriyo obéissance, 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 obéissance macnaheedu waa adeecid. obéissance af Soomaali waa maxay? Waa adeecid. kelmadda laba iyo tobnaad ee ku xigta saa loo akhriyo la patience, la patience, la patience, la patience samirka ama waxaa la dhahdaa dulqaadka. la patience waxaa la dhahdaa samirka ama dulqaadka. kelmadda saddex iyo tobnaad saa loo akhriyo sanction, 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 sanction. sanction waa ciqaab. sanction maxay? Waa ciqaab. waxay noqotaa cunaqabatayn ama waxay noqotaa cunaqabatayn. iminka laakiin waa diin ahaan waxay u taalaa sanction ciqaab bay noqotaa ama binisha bay noqotaa. waa ciqaab labadaba. kelmadda afar iyo tobnaad saa loo akhriyo jurisprudence, 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 jurisprudence. jurisprudence waa fiqiga. jurisprudence waxaa la dhahdaa fiqiga la dhahdaa. jurisprudence waa fiqiga ayaa la yidhaahdaa. kelmadda shan iyo tobnaad saa loo akhrinayo héritage,
héritage, héritage, heritage waxaa la yidhahdaa dhaxalka. heritage waxaa la yidhahdaa dhaxalka ayaa la yidhahdaa heritage. kelmadda 16aad saa loo akhrinayo adultère, 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 adulteer waxaa la yidhahdaa gogoldhaafka. adulteer waxaa la yidhahdaa gogoldhaaf. gogoldhaaf Soomaali waa nin xaas leh oo sinaysta la yidhahdaa gogoldhaaf. kelmadda 17aad saa loo akhrinayo obligatoire, 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 obligatoire waa faral ah. obligatoire waxay dhanta waa wax faral kugu ah ama waajib ah. maxay noqotaa ama waajib ah. obligatoire waa faral ama waajib ayay noqotaa. kelmadda 18aad saa loo akhrinayo la prosternation, la prosternation, la prosternation, la prosternation waa sujuuda. la prosternation waa sujuuda. kelmadda 19aad saa loo akhrinayo la science, la science, la science, la science waa cilmiga. la science waa cilmiga. la science waa cilmiga. cilmiga la yidhahdaa la science. kelmadda u dambeysa saa loo akhrinayo pieux, 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 biyo ama bius. biyo ama bius waa qof alla ka cabsi leh. waa qof alla ka cabsi leh oo qof alla ka cabsi leh weyn. bius waa qof alla ka cabsi leh. science waxay noqotaa cilmiga way noqotaa sayniskana weyn.